بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan akhyaarta nagala socota YouTube-ka. maanta waxaynu waraysi yar kooban ka qaadi doonaa Ustaad Xamse Cabdi Xayd. Ustaad Xamse ugu horeyn soo dhawow bal magacaaga halkaad ku dhalatay iyo primary-gaaga iyo secondary-gaaga iyo waxyaabo yar oo ku saabsan waxbarashadaada inooga sheekay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. magacaygu waa Xamse Cabdi Xayd, waxaan ku dhashay magaalada Burco. waxaan ku soo barbaaray magaalada Hargeysa. waxaan dugsiga hoose ka dhigtay iskuul la yiraahdo maaragtay Cabdiraxmaan Garyare ku yaala Masalla. waxa aan secondary ku qaatay dugsiga 26 June. afartii sano secondary aan ku dhameeyay. taasoo markii aan dhameeyay aan halka ka bilaabay macallinimada iyo xirfadda ama mihnada nimka ku shaqeeyo. Allahumma salli ala Muhammad. jaamacadna waan dhameeyay, markana waxaan ku shaqeeyaa xirfadda macallinimada muddo. waa si wanaagsan Ustaad. bal waxaad nooga sheekaysaa waxaad maadada aad dhigto iyo leefalada aad u dhigto ama ilaa heerkaad ilaa hadda kusoo dhex jirtay macallinimada. waxaan dhigaa maadada xisaabta, maadada riyaadiyada ama xisaabta ama mathematics-ka. muddan ka dhigay waxaan soo dhigay different levels. Allahumma salli ala Muhammad. iskuulo xoogaaya oo tira dhowr ah. tadani afar gaarayn. level kala duwan oo dhigay dhammaan levelada ka kala kooban yahay dugsiga sare. Okay, wixii ugu weynaayeed ka faa'iiday la hadda macallinimada. macallinimada waxaan ka faa'iiday wax aad wanaagsan. waxaan ka faa'iiday ability to lead ama sidee maaragtay hogaaminta iyo cadaaladda dadka sidee dadka maaragtay loola falgalaa ama dadka maaragtay loo hagi karaa sidee gool cayman ama hami wanaagsan oo waxbarashada qofka in lagu hagi karo ayaan ka faa'iiday. Ustaad waxaad dhigtaa maadada xisaabta, bal xisaabtana inkastoo la yiraahdo way yara adagtay ardayda inta badan ay ka yara cawdaan, bal fikirkaaga iyo wixii aad kula talin lahayd iyo maadada xisaabta waxaad ka aaminsantahay adigu. horta xisaabta waxaan ka aaminsanahay in maths is fun. waa wax aad iyo aad muhiim. waliba waxa weeyaan waxaan science kan iyo waxaan la dhiganayo disciplines wax la maadooyinka la dhiganayo free of mathematics marka leeyahay maxay xisaabtu tartaa ayaa wax la yiraahdaa waa key of all disciplines. macnaha waxaan la dhiganayo free dadka aqoonta maadiga la dhiganayo wax xisaab ka maqan uu yaraanayo. marka waxaan oran karaa waxa weeyaan waa jaajuurka aqoonteena maadiga ee marka la oran karo laga mana maarmo. fahan qaldan baa jiro oo ardaydu ka aaminsan yihiin oo sheegay xisaabtu adag tahay. xisaabtu ma aha. xisaabtu waa maadooyinka ta ugu fudud baa loo oran karaa, waayo waxay soo celisay wax yaro base asaasiya operations plus iyo minus isku dhufasho isku qaybin wax maaragtay hoose ayaa markasta ku saabsan iyadoo muddo laga shaqeynaya aakhirka dawladda iyadoo aakhirkii gabadheero xaq hoose lagu soo dhigto ayaan bay soo celinaysa marka laga reebo wax cusub oo inta yaraad ogaanaysa marka inta kale laakiin waa base-keeda si la mid ah marka maadooyinka kaleba qofka duu base-kii ka soo yar qaldamo waxay maadada adagtay maadooyinka lumana kala sameeyay halka inta qof inta hoose asaasiyaadka waayo inta sarena waayo marka taas ma ahane. laakiin qaladkaas waa qalad la fahmay bariga hore la haystay laakiin completely marka aad moodo si dhammaystiran la mooday marka laga takhalusay. marka waxaan sheegayaa sababta inay ka mid tahay maadooyinka ugu fudud ee la dhigto. marka macallimada laga yimaado waqtigaaga firaaqada waxaad ku qaadataa Ustaad? niyow waqtigayga firaaqada waxaan jecelahay akhriska waan jecelahay, inaan wax daawado waan jecelahay, gaar ahaan documentaries-ka marka waxyaabaha aqoon laga helayo. sidoo kale asxaabta inaan la sheekaysto oon waayo aragnimadooda ka helo way wanaagsantahay. marka asxaabta waa qayb ah qoftee maaragtay laga yaabo inuu ka aragti dheer yahay qof kula mid ah iyo qof laga yaabo inaad maaragtay adigu maaragtay ku soo yar ma jiran karo. itaba waxa isku dayan way aragnimo aan ka helo. yaa ku ah role model ama yaad ku daytaa? Allahumma salli ala waxaan ku daydaa deegaanka qofka Muslim Nabi Maxamed ku daydaa sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa iyo dadka hore wanaagsan
laakiin waxa laga yaabaa inaad ujeedo maadiga ama maaragtay casriga waxa laga yaabaa nabi maxamed horta ku dayanaa laakiin dad badan oo lama jirto oo maaragtay Soomaalideena inay ku yeerin baad muddo laakiin waxa ka taa wax ayman qof awood u leh ama in laga daydo mudan iyo caqiidooyinkiisa iyo wax wato soo abwaanimadii wax la mid sadeed dad badan baa la heli karaa oo waxyaabahaas ku wanaagsan laakiin alaam saacada maxamed qof kasta wuxuu leeyahay his own story sheekadiisu leeyahay gaad wax laga yaabaa wax doonaysa computer ka duwan yahay wax kale dadka doonayaan laakiin wax helisa dad waa arimo ka hesho oo wax ka mid ah inaad kaga dayato mudan ee jiray meelaha aad ugu jeceshahay inaad waqtigaaga firaaqada ku qaadato niyo meelaha aan jecelahay waxa weeyaan waa meelaha maaragtay lagu sheekaysto inkastoo aan aad ugu badnayn aan waliba aan ku tago ballan meelaha maaragtay aan buuqeed badnayn insha Allah in maaragtay asxaabta aan ku sheekaysan afkaaraha isku weydaarsano okay da'daada iyo da'dii aad jeclaan lahayd in lagu celiyo iyo sababtaad u jeclaan lahayd da'deedu waxa weeyaan ota soddonka waan ku dhowahay waana ka yarahay ama shan ilaa toban kor dhaaf اللهم صل على محمد تدأ وأنا نقولين بي وأجينا كوياق لها تمنية لها على ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب إن قصدون مكولين اليرت اللي قلتري وده مرة قال لا فرط باولا لورا اليرت هذا أنا بدي بلوير علينا يو توي ونكسرين لي لكن أدوى يعني مثلا أنت هاي لسه أتخيل ليش إما كان أديك كداير لكن أنت هاي مكان هاي أنا هاي لا هو ونكسرين لي لكن واني سبتوه وين maalintii ay kugu farxad badnayd maalintii ugu farxad badnayd taniyo kulli wixii maalintii farxad iyo maalin marti kan xilisa laakiin maalin sheegi karo maalinta kaliya ugu farxad badnayd wallahi waxaan madaynay maalintii in dib laga sheegay mudan tahay cuntada aad ugu jeceshahay cuntada aan ugu jecelahay horta waxa weeyaan waa bariiska maaragtay bariiska noocan la yiraahdo noocyada dambe ee maaragtay bariis maadka yaamana iyo white meat oo kalluunka digaaga wasan mudana xaqiisa liijeeyo okay asxaabtaada waa kuwama aad waqtiga la qaadato samxad ku xulataa saaxiibka wanaagsan saaxiibka wanaagsan waxaan ku hortaa koow deenu yahay qof maaragtay adiga ku ogol number 1 qofan ku dhiirigelinayno ku dhiirigelinaya isla markaana wanaageedaadu aanay dhibi oo maaragtay dad wax wanaagsan u sheegto tira wallahi ma waxa ay igu dhacay inkastoo aad tagtay qof soo nugu wax wanaagsan inuu sheego laakiin qof forward ku wadayo backward aan ahayn qof hore ku wadayo oo kale macna waxbaad qaban kartaa soo iyo soo isagana ay ka muuqato astaan wanaagsan oo horumarineed qofku intuu ku ogol yahay saaxiibad ka dhigi kartaa man inkastoo ay yartahay dadka maaragtay aan de maaragtay ku dhigareynaya ama maaragtay aan happy ku dareemin qofka saaxiibkaaga hadaad farxad ku dareento marka la joogto waa qof wadan la saaxiib hal hayska nolosha ee aad mar kasta hiigsato niyo waxaan doonayaa ummadaynan maaragtay aan dhinto anigoo saameyn leh amaba ummadaan uga tago raad wanaagsan kala dhimo adigoo maaragtay beliefskaaga ideaska iyo waxaad xaqiijinaysaa jiraan ustaad ciyaartoy ma taarti kubadda seeskutiin kubadda aad baan jeclahay kubadda waliba ka dambeeya dhalinyarteedina waan jeclahay waliba lama malaysan karin been ku diinaysan ku daay oo asxaabtu waxay oran jireen maaragtay way u dhiirigelin jireen maaragtay hatta way qariibsan jireen in kubadda iska diin karaan xilliyo ora oo kulul oo أنا العياري كريم بمن عياري شيء دور كلمة دي marka baasha aad baan xisiin jiray walaalaa kana ma jecelahay waqtiyada marka qaarna waan ku qaataa inkastoo aad u badnayno de marka soo si gabowdo maartay waxay dhalinyarnimada sameeyay inay ka baxayso meesha muddo aad baad ma santay ustaad intaas baynu waraysiga gaaban ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah ustaadkuna aad buu mahadsan yahay waqtigiisa inay siiyay idinkuna ku mahadsanidin daawashadiina assalaamu calaykum